waxaa maanta sharaf ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan ee aan ku dahfurayno barnaamijka Baxnaano. Ilaahay baa mahad iska leh horta oo na khalqay oo halkan noo suurtageliyay inaan soo imaano. Marka labaadna waxaan u mahad celinayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo ka soo shaqeeyay barnaamijkan maanta inaan halkan soo imaano oo aan ku shaacino aan ku daafurno. Xaalad adag iyo dalkeena ku jira waa wada ognahay mar walbana inaan ku celcelino oo aan soo helno fursad xaaladda caafimaad ee noo keentay cudurkan la yiraahdo COVID-19 ama caabuqa coronavirus loo yaqaano oo runtii xadiday dadku inay isu yimaadaan oo markay isu yimaadaan sidaan u kala fogaadaan waxay ahayd barnaamijkan bacdama uu yahay barnaamijkii ugu horeeyay oo dadka saboolka aan ku gaarino oo aan ku caawinino in aan intaan ka weynino sababta noo suurtagelin weydo waxay tahay oo naxadiday oo runtii naxanibtay oo noo diiday inaan bulshada la wadaagno dad badan aan u yeerno si aan ugu macnayno barnaamijkan iyo marxaladii uu soo maray waxaa noo diiday isu dhawaanshaha keeni karto in la kala qaado cudurkan oo waxa kaliya looga hortagi karo inay tahay in la kala fogaado ama social distance waxa luqadda ajnabiga ama shisheeye lagu yiraahdo in aan yareyno isu imaanshaha in la kala fogaado dadku inaysan istaaban maxaa yeelay saan hore u sheegnayba cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag ka daba tagiisu waa dhib badan yahay waa runtii bilaaw wanaagsan wax walbana dee meel bay ka bilowdaan inaan nasiib u wada yeelanay idinkuna aad runtii ka shaqayseen inay hirgasho markii ugu horeysay ay dowladdu haba yaraataba ay gaarsiiso shacabkeeda dadkeeda saboolka waxay awoodo inay gaarsiiso bil Ramadaan ay hadda ay bilaabanayso mar dhow iyo xaaladan COVID-19 ay keentay oo dad badan laga yaabo qootiliyoonkoodii iyo noloshoodii inay dhintay in dowladdu ay u gargaarto ay kaalmo gaarsiiso runtii waxaan oran karaa waa horumar aan gaarnay waxaan aaminsanahay marka haddii intaas aan ku sii darno waxaa laga yaabaa ama intaas aan ugu sii dhawaano waxaa laga yaabaa intaas iyo in ka badan awoodeen inay tahay aan gaari karno waa mar kale waa idin mahad celinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen ummadda aad u qabateen oo in aan daryeelno dadkeena inaan shacabkeena daryeelno mar walbana in madaxa nooga jirto ama maskaxda nooga jirto mar walbaba waxaan u maqannahay oo aan u shaqeynayna inay yihiin dadka aan mas'uulka ka nahay ama dadka mas'uuliyadda noo dhiibtay marka hawsha aan laba jibaarno aan shaqeyno insha Allah sanadka soo socdana intaan in ka badan inaan gaarno